kusoo dhawaada aragtida official markale iyo muuqaal cusub haddii aad ka heshay muuqaaladeena fadlan subscribe noo saar YouTube channelka aan ku leenahay barta internetka iyo Facebook page-kaba. waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan dhulka aan ku noolnahay waa kowkabka saddexaad ugu dhow qoraxda. markii laga hadlayo kawaakibta ku hareeraysan qoraxda waxaa kaliya ka horeeya Utarid iyo Zuhra. kan saddexaad waa dhulka. cilmi ahaan waxa la ogaaday in haddii dhulka wax yar ka fogaan lahaa qoraxda waxa dhici lahayd qabow aad u daran oo nolosha mustaxiil ahaan lahayd. sidoo kale haddii ay wax yar u dhowaan lahayd qoraxda uu noqon lahaa foorno aad u kulul lagu noolaan karin. waa sida ka jirta labada kawaakib oo aan soo sheegnay oo qoraxda u dhow kuleelka ayuu gaadhayaa wax ka badan 600 oo digrii. waqti sii horeysay ayaa dowladda Ruushka dayax gacmeed u dirtay ama ka dejisay kawaakibka Zuhra oo ah kan labaad ee qoraxda u dhow. 2 daqiiqo kaliya ayaa dayax gacmeedkii ku milmay sida baraf oo kale ama ku baaba'ay kuleelka ka jira dartii. ilaa iyo hadda inta cilmiga bini'aadamka uu gaarsiisan yahay dhulka waa meesha kaliya lagu noolaan karo kawaakibta inta kale la arkay. nooluhu waxa qudub dhaxaad u yihiin helitaanka hawo lagu neefsado, heerkul dhexdhexaad ah iyo biyo la cabo. intaas dhulka waa laga helaa alxamdulillaah. dhulka waxaa ku nool malaayiin nooc oo nafley ah oo bini'aadamku ku jiro, waxaana mustaxiil ah inay ku noolaadaan kawaakibta kale xitaa kuwa dhulka u eg sida kowkabka almariikh mid aad u shabaho dhulka oo leh buuro waaweyn, togag bannaan laakiin aanan lahayn hawo lagu neefsado. dhulka waxaa ku gadaaman xayndaab ilaalin ah oo Allah subxaanahu wa tacaala u sameeyey kana ilaalinaya waxyaabaha hawada sare ka soo duula sida kawaakibta yaryar, shucaaca sunta ah ee iftiinka xoogan wata ee qoraxda kusii dayso hawada. dhulka waa kan kowkabka keliya ee leh magnetic field oo ka ilaalinaya shucaaca dilaaga ah ee qoraxda hawada kusii dayso. badka guud ee dhulka bad iyo beri waa nus bilyan kilomitir oo square amba 500 oo milyan. kaliya 29.8% ayaa ah dhulka engegan. inta kale ee soo hartay amba 70.2% waa bad biyo ayaa fadhiya. wadamada caalamka dhulka inta engegan ee ku yaala ilaa iyo 200 oo dal ayay gaarayaan. waxa ugu badweyn Ruushka oo 17 milyan oo kilomitir square ah. qoraxda aad arkaysaan aad iyo aad ayay dhulka ugu weyn tahay. dhulka iyo qoraxda haddii la isbarbar dhigo waa sida mir yar oo aad ag dhigtay gurigaaga. dhulka culeyskiisii waxaa lagu qiyaasaa sabtalyuun kilogram oo wax aan caqliga geli karin. walxaha dhulka ka samaysan yahay ayaa ah 32% bir, 30% waa oxygen, inta kale ee hartayna waa silicon, magnesium, cabrit, nicon, calcium iyo aluminium. dhulka sanadkii waxaa soo mara 4 xilli. cimilada dhanka roobka, kuleelka iyo qabowga kala duwan yihiin. xilliyadaasi kala ah xilliga gu'a oo ah xilli roobaad, xilliga xagaaga, xilliga dayrta iyo xilliga jiilaalka. dhulka aan ku noolnahay wuxuu leeyahay dayax raacsan oo masaafo ahaan aanan ka fogeyn ilaa iyo 350 masaafo dhan ayuu dayaxa dhulka u jiraa. faa'iidooyin badan ayuu dayaxu dhulka u leeyahay uguna muhiimsan tahay in habeenkii wax lagu arko iyo arinta la xiriirta waqtiga iyo dhaqdhaqaaqa biyaha. ilaa iyo hadda dhulalka la diiwaangeliyey meesha ugu kulul waa saxaro ku yaala wadanka Iiraan oo lagu magacaabo Saxaraa'ul-Lut. 71 digrii oo darajo ayaa la diiwaangeliyey ilaa iyo hadda, waana meesha ugu kulul caalamka. dhulka inta beriga ahi waxaa loo qaybiyaa ilaa iyo 7 qaaradood. waa qaaradda Afrika, Aasiya, Yurub, Koonfurta Ameerika, Waqooyiga Ameerika, Australia iyo qaaradda koonfureed ee barafka fadhiya ee loo yaqaano Antarctica. qaaradahaasi aan soo sheegnay waxa ugu weyn qaaradda Aasiya dhanka dadka iyo dhanka bedkaba waxaa soo raaca qaaradda Afrika. waad mahadsantihiin haddii aad ka heshay muuqaaladeena iyo warbixinadeena. fadlan subscribe iyo follow na soo dhaha si anagana dhiirigelin oo noqoto.